gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhoon Amaya iyo waliba uu soo kulun bileerin usulagaada geeka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba qaar kumid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya walibana kulunka muhiimadiisu tahay sidii hooji lahayd qoondada hanraabtiyo kaleyn xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba sidii hooji lahayd wada shaqeeyowka kulunka oo muddo oo saxaafada banaanka ku roogdi iyo waliba maduusa dhamaad kurada warbaahinta la hadalay afayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya Malaaq Darow Yacquub waliba uu ku warbiyay kulankii waliba walaabay ku wada hadalay maanta taariikhda 8 bil 2019 odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo xildhibaanada dawladda federaalka iyo aqalka sare guddi ku socday xildhibaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed yama shirka qaadeen hoolka baarlamaanka koonfur galbeed mayna liin ku hadalay shirkaasi sidii liin kala lahaay koontada balanta in la helo iyo codsigooda odayaalka dhaqanka hanjeediyeen أول بون يوهنين كعسنا ما يبغى ولا جرني غير كفر قلبات هديون هنا دقنشوا برلمان كفدرال ك كوي تون قبردان إنك جرتو برلمان ك أغل كسرنا سد قبردان إنك جرتو كان كفر قلبان صدقني كقبرد إيانا أفر وزيرا إنك جرت هرتبا سداسن إلى الياني يا عدس يعني إنك جدنا بس أسن إلى الياني حدنا السداس إسق فيلا ما يفضان إنه إلى علينا إن شاء الله تعالى ما يبرجيانه إني أرنتاس قولي لهالدون هدي إلى هاي الدرسية برلمان ككفر قلبات برلمان كلام الله حلو إنه ضيالك إسق جبابينه جبروغان جبروا حرمرك بالشدة جبروا أرجلا أحسن بالشدة دون فيلوا إن شاء الله ونون كده لنا هدي إلى هاي كران نقطه شلادي ولا ونك عسني ما هاي إني أقوان أخلاقيات فيليا الله كويان كده من الخير كده سن أناي كان لد سو أناي دولة إنشاء أنت لما أنت جابس إنك قالنا أنت أساس القرني إيه دان ماسن أحمد إبراهيم بولا تلفزيون كيو راديو دولة goboleedka koonfur galbeed magaalada Baydhabo